Wabiga Shabeelle ayaa waxa uu fatahaad hor leh ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaano hoostaga magaalooyinka Jowhar iyo Mahadaay waxaana badi dadkii ku noolaa deegaanadaas ay ka barakaceen tuulooyinka saacadihii la soo dhaafay uu fatahaada ka sameeyay Wabiga Shabeelle ayaa waxa ka mid ah Buurfuule, Buulo Sabuun, Muriyaale, Lamawaab, Xudur Ciise, Kulmis Weyne iyo degmada Mahadaay. Gudoomiyaha tuulada Buurfuule ee hoos tagta degmada Mahadaay Cabdilaahi Yuusuf ayaa sheegay in ka badan 300 oo ruux ay tuuladaasi ka barakaceen waxaana madaxda Hirshabeelle ugu baaqay inay gurmad u fidiyaan. sidoo kale waxa uu sheegay in ay macquul tahay in maalmaha soo socda ay sii kordhaan fatahaada uu sameynayo wabiga isla markaana wabiga uu gooyay dalagyada beero badan oo ku yaala tuulada Buurfuule. dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Dhaqare ayaa hay'adda FAO ku eedeeyay inaysan fulin waxyaabo lagu ballamay isla markaana ay sabab u tahay in aan la dayactirin Wabiga Shabeelle si looga hortago fatahaada. si kastaba ha ahaatee Wabiga Shabeelle oo mara gobolada Hiiraan iyo Shabeellooyinka ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu fatahaad ka sameeyo deegaano ka tirsan goboladaas iyada oo dadka ay bilaabeen in ay barakacaan.